wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii aan idiin ballan qaadnay ee taxanaha Antikristos xilqadiisii koowaad. taliyaha ilayska tan iyo maalinkii la abuuray 2500 dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam. heestan waxaan u qaadi doonaa Ilaahay marka uu yimaado badbaadiyaha weyne, inantan waxba aan galabsan ee warwarsan ee quruxda badan kaalay oo xoree. waa hees baabili ah oo guun ah, cod waayeel ah oo baabili ah ayaa uu ku dhaqaadayay, madaxana waa uu ruxayay. waxa uu lahaa cod halaasiya oo macaan, balse sanqadha ku gadaamanay ma ahayn mid la jaan qaadaysa codkiisa wacan. waxa uu ku dul heesayay cida adhiga daaqaya beer, adhigana waxa uu uga lulayay ushiisa oo waxa uu ku faraxsanaa. oo ma waxaa jira qof lugeynaya deegaankan ashqaraarka ah oo aan faraxsanayn. waxa aynu joognaa boqortooyadii Cashuur ee hore, meel u dhow magaaladii Baabil, magaaladii ugu weyneyd ee ay arkaan jin iyo insi taariikhda adduunka. adhiilaha heesayana waa oday Lishma. marka uu yimaado badbaadiyaha weyni, dhabtii waa aad xoroobi doontaa. 4000 oo sano ka hor dhulku wuu ka duwanaa dhulkan, cirkuna waa uu ka gedisanaa cirkan. haddii uu Lishma eego barkada uu ag socdo, waxa uu arkayay ilaa salkeeda oo dhan. waxa uu arkayay kalluunka ku jira iyo xayaabada ku samaysan tahay, sidii qof eegaya shimbiro cirka maraya oo kale. 4000 oo sano ka hor wax kasta waxa uu ahaa wax hufan oo nadiif ah. waxa uu rabay Lishma in uu yara nasto. waxa uu u kacay dhanka geed uu cuntada hoos dhigan jiray. markii uu geedkii u dhawaaday, waxa uu arkay cuntadiisii oo daboolkii laga qaaday. waanu yaabay. tuugtan fuqarada ahi weligood ilbixi maayaan. haddii ay cunto i weydiisan lahaayeen waa aan siin lahaa, balse waxa ay door bidayaan xatooyada. waxa sida naftiisa ku leh oday Lishma. naftoodu dawarsiga waa ay nacaysaa, xatooyadana waa ku raali. Lishma waa uu yaabay markii uu si wacan weelkii cuntada u eegay. inkasta oo weelka furla yahay, haddana caanihii iyo cuntadiiba waa sidoodii. caano fadhigii ayaa wax yar laga qaatay, caanihiina wax aan badnayn ayaa laga dhamay. wax yar oo aan oon iyo gaajo midna tarayn ayaa laga cabay. waa uu fadhiistay duqii Lishma, waa uu cabay oo waa uu cunay. harkii geedkana waa uu ku nastay. kadib waxa uu go'aansaday in uu barkada ku maydho sidii ay samayn jireen dhammaan adhijirayaashii boqortooyooyinkii hore. dharkii inta uu iska wada bixiyay ayaa uu biyihii ku dhaadhacay isagoo oo Lishma maydhanaya. haddana kolba waxa uu eegayay dharkiisa si aan u kas ahayn. si kadis ah waxaa geedka u hoos dhigay koox shimbiro xamaam ah oo qurux badan. cuntadii ayaa ay dul tageen xamaamkii. waxa uu bilaabay inuu caanihii fadhigii googoosto, caanihiina uu kiishada cunaha ka buuxsado. waxa uu ahaa muuqaal yaab leh. waa ay duuleen shimbirihii, waxaanay aadeen meel aan aad uga durugsanayn. in yar kadibna haddana waa ay soo noqdeen shimbirihii. cuntadii ayaa ay ku degeen, afka ayaa ayna ka buuxsadeen cuntadii. kadib waa ay duuleen. waxa uu ka soo baxay Lishma barkadii. maryihiisii baabiliga ahaa ayaa uu gashaday. xaggii geedka uma kicin ee waxa uu kacay meeshii ay xamaamku duulayeen ee uu ka soo noqonayay. kolba waxa uu arkay waxa indhihiisu la weynaadeen yaab iyo anfariir dartii. waxa uu meeshii uga tegay gabadh yar oo 9 jir ah. indhihiisa weligii ma ay arag wax la qurux ah inantaas. taas lama uu yaabin. waxa uu la fajacay in uu xamaamku inanta yar ku hareeraysan yahay oo ay quudinayaan caano iyo cunto. gabadha yari waxa ay ahayd mid qoslaysa oo gamcaha dhaqdhaqaajinaysa iyadoo oo faraxsan. markii uu Lishma u soo dhawaaday, waxa ay qososhay qosol hufnaanteeda uu ka ilmeysiisay oday Lishma. caqliga baabili adhijira ah. waxa uu arkayay waxa uu ahaa wax khiyaali ah oo sheeko bareley ah. Lishma kor ayaa uu qaaday yartii. shimbirihii hawada ayaa ay ku duuleen iyaga oo ku dul wareegaya oo la dhacsan si aanu fasiri karin. Lishma
lishma waxa uu eegay indhaheedii quruxda badnaa. waa markii ugu horreysay ee uu arko baadad sidaa u qurux badan. waxa uu go'aansaday lishma in uu inanta yar qaato oo uu korsado. waxa uu go'aansaday in uu u bixiyo magaca ay dabeecadiisu ama naanaystiisu ku lishaaman tahay tii xamaamku jeclaa. magaca marka af baabili loogu dhawaaqayo waxa uu ahaa mid caadi ah. waxa uu noqonayaa baabili ahaan Semiramis. haddaba halkan waxaa ka bilaabmaysa heestaasoo u dhacaysa sida tan. marka uu yimaado badbaadiyaha weyni iyo inanta aan waxba galabsan ee werwerisan ee quruxda badan, kaalay oo xoree hadda. waa dabaaldegii weynaa ee baabil. marka uu bandhigan iyo dabaaldegan ka jiro baabil waxaa sii boqol jibaarma quruxdeeda hore ee indhahaaga u raaxee marka ay kulmaan buuraha cagaaran, bannaanka webiyada qulqulaya iyo qasriyada marmarka caddaanka ah iyo ka buluugga ah lagu xardhay, iyo sawirada farshaxanka gidaarada lagu sameeyey. marka waxaas oo dhan ay sii bilaan caruurtuna cirka kusii daayaan caleenta sacfaraanka, fardaha dheelaya iyo dadka xidhan dharkoodii ugu bilicsanaa taariikhda. marka waxaas oo dhan aad aragto ayaa aad garanaysaa inay dhacdo weyni jirto. marka aad aragto sacfaraanka oo dhulka oo dhan qariyey ayaa aad garanaysaa inuu cunug u dhashay boqor kuush iyo boqorad oodaag, weliba cunug wiil ah, waayo bandhigan lama sameeyeen haddii uu cunuga gabadh yahay. waa kan wiilkii xooshka ku jira ee ay hareero tuban yihiin umulisooyinkii, kuwaas oo habeeno badan u soo jeeday daryeelka hooyada inta ay ka umulaysay. ku soo dhawow xoolkas oo fiiri cunuga. marka aad u soo dhawaato waxaad maqli doontaa weedho badan oo ammaan ah. indhihiisu qurxoona, waa cunugii ugu cajiibsanaa ee aan arko. weedhahaasi waxay kugu riixayaan in aad u dhawaato oo aad eegto cunuga. waa kan hortaada yaalla, madax yar iyo indho fiiqfiiqan ayaa ay quruxdiisu koobsatay. waxaa jira wax ku warwargelinaya sida ay umulisooyinku u hareero tuban yihiin cunuga ee ay hareeraha u daadsan yihiin caleenta sacfaraanku. waxaa jira wax kale oo aad arkayso, ma aha walxo balse waa shayaadiin. waa shayaadiin. waxay u dhoola cadaynayaan si fijac ah oo ay isla garanayaan wax aanad fahmayn ayaanay akhrinayaan. inkastoo ay cunuga ag yaaleen shandado gacanta loogu sameeyey oo xirsi xidh ku jiro iyo toon ereyo ruuxaanta xun, haddana waa ay joogeen. waxa umulisooyinka gacmaha marsadeen sacfaraan, foodana waxa ay u mariyeen boqorada oodaag si ay shaydaanka looga ilaaliyo cunuga. haddana waa ay joogeen shayaadiintu. dadkii waa ay wada aamuseen. waxaa hadlay sheekhii weynaa ee haamoolkii, sida ay reer baabil u yaqaanaan. waxa uu yidhi sheekhu, maanta waxaa ii sharaf ah, aadamaha u sharaf ah, dhulka oo idilna u sharaf ah, dhalashada wiilka lab ee qaadan doona magaca boqorka weyn ee kuush. wiilkan boqoran oo qoyska boqortooyadu gartay inay u bixiyaan sahaag. dadkii farxad ayaa ay isla ogsadeen qaylo, balse magaca sahaag ma uu ahayn mid wata macno la jeclaado. magaca waxa uu afbaabili ahaan ku noqonayaa maskii qaniinyada darnaa. markii magaca maska lasoo hadal qaaday waxaa la maqlayay qosolka shayaadiinta micyahooda. waxaa ka soo baxayay foorida shaydaanka oo farxadeed. adhijirihii lishma waxa uu eegay wejiga dabacsan ee dhidignimada leh la hurda ee la moodo in ay tahay hadiyad samada keligii looga soo diray. waa dheemantan yar ee uu u bixiyey Semiramis. waa adhijirihii yaraa oo maalintii inteeda badan qatan. hoyga ay u qalanto dheemantan yari ma aha guryaha duuga ah ee dhexdooda ku jira. waxaa la hubaa in ay ilaahyadu u kaydiyeen quruxdeeda goob kale oo bilan. waxaa ku soo dhacday maskaxda lishma fikrad weyn oo ku saabsan Semiramis. beri waxaa la qaban doonaa bandhig suuqeedka weyn ee Nainawa, kaas oo ku beegan xilliga guurka ee sanad kasta lagu qabto baabil. halkan waxaa isugu yimaada doobabka iyo gashaantimaha ka kala yimi dhammaan gobolada boqortooyada weyn ee Cashuur, si uu mid kasta ugu raadsado lamaane ku habboon. odayaashu waxa ay iibsadaan hablaha yaryar si ay ugu guuriyaan wiilashooda marka ay waaweynaadaan. waxa uu eegay labadii indhood ee Semiramis ee qurxoonaa. waxaanu goostay inuu berri Nainawa geeyo. lishma waxa uu ku qaaday Semiramis tunka. waxaanu aaday suuqii Nainawa. haddii ay maalin uun qurxi hadli lahayd waxa ay ku dhawaaqi lahayd Nainawa.
lishma waxa uu xidhay dharkiisii ugu wacnaa, laakiin waxa uu u muuqday dawirsade marka loo eego dadka joogay suuqa ay ku tartamayaan nin kasta oo qaab leh iyo gabadh kasta oo qurux badan. waa ay qoslaysay Semiramis qosol soo jiidasho leh oo ku dhaliyay qof kasta oo arkayay weydiinta ah waa maxay dawirsadahan luulka gacanta ku sita. Sima ilaaliyaha waa ninka ilaaliyaha boqorka fardaha ama u soo iibiya boqorka fardayaasha iyo dahabka ayaa isla markiiba ishiisa waxa ay ku dhacday wejigii Semiramis. Sima waxa uu ilaaway fardihii, waxa uu ilaaway boqorka wax kasta waa uu hilmaamay, kaliya waxa uu xasuustay in uu madhalaysi ahaa. mar kale ayaa uu eegay cunugtii timo bunni ah oo dahab la moodo ayaa ay lahayd. sidee ayaa uu bunnigu dahab u noqdaa? ma sharaxi kartid ilaa aad timaha yartan aragtid, laba indhood oo soo koobaya macnaha dhadignimadooda dhan. dibno curdin ah. Sima wax kasta faraha ayuu ka qaaday, waxaanu u kacay dhanka adhijirihii gaboobay ee Lishma. waxa uu si feejigan u eegay dharkii Sima ee boqortooyada. cunugtiina waxa ay u dhoola cadaysay Sima si la yaab leh. waxaa garaacay wadnaha oo uu ka soo fuqay gororkii u dambeeyey ee aabbanimo ahaa. waa ay ku carartay oo laga ayaa ay ka gashay Semiramis sare ayaa u qaaday isaga oo faraxsan. waa oday Sima waxa uu jeebka ka soo saaray kiish lacag ah oo dahab ah oo uu rabay in uu fardaha ugu qaalisan ugu iibiyo boqorka. Lishma waxa uu eegay kiishkii oo hunguriga ayaa ka soo dhacay. kadib waxa uu u dhunkaday gacantii Sima, waana uu iska dhaqaaqay isagoo ku heesaya marka uu yimaado badbaadiyaha weyni waad xoroobi doontaan runtii. daawadayaal caawa intaas ay noogu joogto xilqadeena koowaad ee taxanaha Antikhristos.